بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أصحابتيدا قيمها يقايها بدن له aan ka wada socono bartan aan youtube-ka ku leeyahay ee shukri muse talent channel waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa ramadaan kariim ilaahay ha naga aqbalo acmaasha wanaagsan ee ramadaanku uu ka kow yahay ama uu ka mid yahay iyo salaada iyo sadaqada intaba allah naga aqbalo alxamdulilah shukru rabbil caalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa sama nagu gaarsiiyey habeenkan barakaysan ee mubaaraga ah ee ramadaan uu bishay oo bishii ramadaan ay caawa bilaabatay maantoo khamiis ahayd caawana jimca soo gelayso macnaheedu waa berrito oo jimco ah ayaa ramadaan kow yahay alxamdulilah shukru rabbil caalamiin allaha awoodda sare iska leh ee na soo gaarsiiyey ayaan ku mahadinaynaa in badan oo dadkeenna ka mid ah oo ramadaankii hore xilligan oo kale aan isla gaarnay ayaan caawa noolayn oo aanaynan u suuro gelin in ramadaankan ay ka mid noqdaan ummatul maxamedka ramadaankan alla gaarsiiyey ee soomi doona ilaahayow u naxariiso intii naga dhimatay ilaahayow inta naga xanuunsan marad xunaa jira cudur adag oo dunidoo dhani ay ka qaylisayaa jira ilaahu adaan ku magansannahay ilaahu adigaan magantaadan nahay ilaahayow na ammaanso ilaahu dalkeennii iyo inta ku nool ee soomaali ahna nabadgeli intii dhimatayna u naxariiso rabbiyow inta caafimaad qabtana caafimaadka u siyaadi soomaali maxamed inta dunida daafaheeda ku kala nool ilaan waa firxanaye waxaas dhoof lama yidhaahdee waa qax ee qaxa ku kala tegey rabbiga daa'inkaa meel walbay joogana ku ammaansado intii naga dhimatay jamiicanna rabbiyow raxmaankeeyow u naxariiso oo naxariistaadii janno ka waraabi ilaahayow inta hadda xanuunsan ee dhinacooda dhul yaallo ee xanuun u jiifana rabbiyow caafimaad taama adigan ku weydiinaynaa bishan barakaysan fadligeeda rabbiyow raxmaankeeyow caafimaad taama sii ilaahayow inteenna caafimaad qabta ee caafimaad ramadaan ku soo gaartayna rabbiyow raxmaanow caafimaad noogu dhammee ramadaan adigaa awoodda sare iska leh aqbalkana adigaa iska leh naga aqbal yaa rabbilcaalamiin intaa kadib daawadayaashayda qiimaha iyo qaayaalahow waxaan u gudagelaynaa barnaamijkii aan idinkugu talagalay barnaamijkaas oo aan u bixiyey ama magaciisa aan ka dhigay sahaydaada qaado safarku waa dheeryahay sahaydaada qaado safarku waa dheeryahay sida aan wada ognahay asxaabey qof walbaa oo nool oo nafi ku jirto waxa uu u baahan yahay ama shidaalka uu ku socdaa waxa uu yahay waxa uu quuto ayuu ku socdaa dunida inta aan joogno waxaan ka dadaalnaa oo reer walba iyo qof walba oo waalidahoo mas-uulihi uu ka dadaalaa inaana dadkiisu gaajoon inaanu waalidkiis gaajoon inaanu ilmihiisu gaajoon inaanay naftiisu gaajoon ehelkiisana inta uu gaari karo ilaahay baa deeqa bixiye ilaahay baa dadka deeqa qof bini aadani wuxuu gacan ka dhiibay laguma dhergo deeq fara badanna ma noqdaan laakiin caymis bay noqdaan caymis marka ruux walbaa waa gaajo ka carar dunida korkeeda
waa gaajo ka carar waa fadeexa ka carar waa ceeb ka carar wuxuu doonayaa inuu ku noolaado gaajo la'aan nolol barwaaqo leh oo fiican oo macaan oo qurux badan maxaa kaluu doonayaa inuuna adduunyada dusheeda ku fadeexoobin oona ceebihiisu ayna bannaanka imaanin oo ilaahay ceebihiisa u asturo ceebihiisa iyo ceebaha awlaaddiisa iyo ceebaha ehelkiisuba inayna bannaanka imaanin uu rabaa qof walba maxaa loo wada halgamayaa sidii lagu gaari lahaa baraare adduun maxaa kaloona looga baahan yahay aakhira inaan baraare gaarno ayaana looga baahan yahay oo aan iloobin daartan maanta aan ku noolnahay daawadayaal waa daarul imtixaan ma aha meel lagu raaxaysto laakiin waa meel loogu shaqaysto daarta dambe ee waarta ee lagu waaro halkan haddaad silic ku nooshahay haddaad saxriir ku nooshahay haddaad gaajo ku dhammaysato noloshaadoo idil haddii cudurku haleelay aad noloshaada inteeda badan ku dhammaysato waa nolol dhammaanaysa waa wax bilowday oo dhammaanaya hadday dhammaadaan silic iyo saxriir kasta oo aad ku noolayd hadday ku dhammaadaan haddaad ku sabartay silicii gaajadii xanuunkii dhibaatadii oo aad qof islaama oo iimaan leh oo sabray cibaadadii ilaahay uu ku imtixaamay oo maxay ku adoonsadayna ka soo baxay haddaad tahay waxaad u gudbaysaa bashbash iyo barwaaqo waxaad tegaysaa meeshii aad ku raaxaysan lahayd waxaad tegaysaa meelaan laga bukoonayn waxaad tegaysaa meelaan lagu gaboobayn waxaad tegaysaa meelaan maxay ahayday caajis iyo dhibaato iyo waayeelnimo midnana ayna ku haleelaynin waxaad tegaysaa daar lagu waarayo oo fiina abadan aad ku noolaanayso meeshii aad juusgaraysatay oo aad dooratay intii aad noolayd ilaahayna uu kula garab galay ayaad ku noolaanaysaa daartaas maxaana looga baahan yahay marka dadaalka adduun yaan loo dadaalin lama dhihin oo adduunka ugu noolow baa la yidhi sida adoon weligaa ka tegaynin aakhirana ugu shaqayso intaad dunida joogto sidii adigoo hadda dhimanaya maxaa loo baahan yahay marka waxaan hormarsanaa loo baahan yahay waxaana looga baahan yahay inaan fakarno qiyaamo ma dheera aakhira ma dheera neeftaas aad leedahay iyadoo lagugu celiyo aa kaa xigta yaa iyadoo naqaska lagugu dhajiyo ayaa kaa xigta aakhiro meel fog iyo meel maaragtay yaa waqti dheer kadib la tegi doono maaha labada daarood waa daris waa isu dhow yihiin aad ayay isugu dhow yihiin in yar oo naqaska lagugu dhajiyo ayaa daartan ka guuraysa oo tii kala tegaysa yaa allah ilaahu noo fududay maxaa loo baahan yahay marka walaalayaal waxaana looga baahan yahay daarta dambe wixii aan geysan lahayn oon ugu tegi lahayn oon ku ladi lahayn oon ku nasan lahayn oon ku seexan lahayn oo aan quud ka dhigan lahayn inaan hadda sii diyaarsano naftu intay kugu jirto jaanisaad haysataa waqti baad leedahay inaan hadda sii diyaarsano oon usii diyaar garowno daarta dambe aan ku nasanayno beer haddaad maanta falato ood miro ku riddo maxaad ilaahay ka rajaynaysaa haddii roob helo ama ay waraab tahay ood waraabiso maxaad ilaahay ka rajaynaysaa inay intay baxdo xabaddii aad meel ku ridayba ay intaa haasahaa noqoto yaa oo aad adduunyada ku manaafacaado tan aakhirana waa sida sadaqada yar ee aad baxsato shilin maanta haddaad baxsato waa lagu 10 laabayaa 10 laab iyo wax ka badan ayuu ilaahay kuugu samaynayaa haddaad maanta dambowdo dembi aad gashana halkaas dembi oo kaliya lagu qorayaa alxamdulillaah ilaa wada ama hadda iska leh aan dembiyadana noo laalaabin marka maxaa la rabaa inaan waxa aan anaga nafteena la rabno maaha inaan dhaqaalo badan qof walba u haysto laakiin naftaadu waxa ay rabto ayaa nafta walaalkaana ay rabtaa inaad naftaada intaad ka qabato ka goyso aad walaalkaa wax u ogolaato ha yaraadaan hadday rabaan yaa wadada hore wuxuu u yiri la yiri hore u dhiibo adaa helaaye ama iska hayso
mid kalow heraayee maxay tahay macnaheedu waxaad adigu maantaad nooshahay yaddaada ka baxsatood hore u dhiibato meeshaad u socoto berrito ayay kaaga horreysaa iyadoo kuu taalla ayaad ugu tegaysaa oon cidina kaa qayaanin haddaad laakiin iska haysato ood bakaysho ood istiraahdo kaama go'do ood istiraahdo adaa u baahan ood istiraahdo maxay ahda ilmahagaa u baahan oo aad wixii idinka aad cunayseen calool waxaan laga reebin kama haraan nafta bini aadanka waxaynan iska jarin meel ma dhigato mana baxsato mana hormarsato marka haddaad ku bakaysho ama intaad xisaabtanto istiraahdo tan maanta adiga kaama roona berri ramadaankan hadda waa gaarnay intayna gaartay in badanoo ramadaan ka hor nala joogtana kan sooma gaarin in badanoo kan hadda joogtana kan dambe ma gaari doonto waa hubaal wixii aad maanta marka istiri berritaad baxsanaysaa adoo intaan dhaama berri inaad gaaraysa yaa kuu ballan qaaday waa maya maxaa lagaaga baahan yahay inaad hadda naftaada ka fajowdo ood ka reebto oo waxaad sadaqaysan karto ood horumarsan karto maantaba aad horumarsato waxaad maanta qaban karto daawade weligaa berri ha u dhigin maanta inta ilaahay kaa garansiiyo ood ka qabsan karta ka qabso berri ha u dhiganin saa naftan laysma siinin waa ammaano lama oga berri inaan gaarayna iyo in kale marka haddaad waxaa adiga shalay aadan hore u baxsanayd ku bakiisheed istiri maya maanta adiga kaama roona aad berri ka dhimato amaad caawa madaxa laabto waxaagii xoolahaagii maxay noqdeen dhaxalka yaale intii dhaxalkaaga lahayd ma hubtaa inay wax kuu sadaqayn doonaan allahu akbar waa maya waxaanse rajaynaynaa walad saalixa in ilaahay naga reebo awlaad saalixiina in ilaahay naga reebo waa rajaynaynaa waana inaan ku tarbiyaynaa intaan nool nahay inaan annaguna waalidkeennii hore xasuusanno iyagu sida ay annaga noo xasuustaan laakiin waxaad hubtaa waa inta yaddaada ay ku jirtaad hubtaa sidaas daraaddeed waxaan isku tirtirsiinaynaa inaan wax la baxno oon wax sadaqaysanno si waxaasi ay noo noqdaan kayd meel noo yaalla oo aan berri kansigaas ugu tagno meeshiisii meesha annagu sii dhiganay aan ugu tagno awlaaddeenna wixii ay noo soo sadaqeeyaan iyo wixii ay noo soo duceeyaan dabcan wayna soo gaarayaan laakiin horta annagu waa inaan dadaalna inta madaxeena karta ku jirto sadaqada naftaada ula baxa waalidkaagii dhintay ula baxa kaaga nool u niyeyso awlaaddaada u sadaqee reerku waa ku liibaanayaa awlaadduna way ku liibaanaysaa naftaaduna way ku liibaanaysaa waalidkan wuu ku liibaanayaa marka walaalayaalow inkastoo maalin walba iyo mar walbaba naftaanu intay jirtona laga rabo inaan wax sadaqaysano haddana waxaan soo gaarnay bishii ramadaan oo dadkeennii danyarta ahaa fuqaraa wal masaakiin oo sadaqo ku baxdo oo dalkii jooga cudur ugu darsamay cudurkii caalamka wada camimay ayaa dalkeenniina taagan ilaan anagu adduunyadan ka midnahay meel ka go-on ma joogno sidaas daraaddeed dadkii oo maxay ahday danyari iyo soon iyo cudur isugu darmay waa inaan gurmadkeennii hore soomaalidu weligeeda iskaalmayn jirto iskaalmaynteennan intaan kusoo gaarnay iyo idanka ilaahayoo noo naxariistay inaan 2 laabno oo 3 laabno oo 4 laabno ayaana looga baahan yahay qof walbow naftaada ka qabo ee nafta walaalkaa u dhiib sahay sii dhigo safarku waa dheeryahay sahay sii dhigo meelaan laga dhimanayn oo laga bukoonayn oo laga duqoobayn ayaanu u soconnaa waa inaan wixii aan halkaas ku joogi lahayn sii diyaarsano oon sii dhigano ilaahayna uu noo barakeeyo uu noo laalaabo biidnillaahi kariim sida ilaahay noo ballan qaada aanna ka rajaynayno markaa ma rabo barnaamijkan inaan ku dheeraado barnaamijkan oo baraarujin ah oo ah bal inaan isxasuusanno inaan hoos wax u eegno inaan naftaada ka qaad oo naftaada sii inaan nafteenna ka qaadno oo nafteenna aan siino nafteennan maanta ka goynaynaa berrina nafteenna helaysa waxaad maanta sadaqaysato berri naftaada una helaysa marka waa naftaada ka qaad oo naftaada sii marka walaalayaalow ramadaan kariim ramadaan mubaarak ilaahayga daa'inka ahaa naga aqbalo acmaasha saalixa ah
inta ramadaanka lagu jiro ilaahay samaha noogu dhameeyo ilaahay caafimaad hana siiyo inta naga xanuunsanaa noo caafiyo inta naga dhimatayna ha u naxariisto innagana ha noo naxariisto adduunya aakhiraba naxariisaan u baahannahay allaha awoodda sare leh ha nagu hanuuniyo tubta toosan ilaahay baan ka baryaynaa hanuunka isagaa leh inuu na soo hanuuniyo wixii dhibaataynaya iyo dhibaatooyinka jirana uu naga dul qaado yaa rabbilcaalamiin ilaa wadaan sacbada kuu taaganay ee naga aqbalo naga ajiib ramadaanka fadligiisa idankaaga ilaahay dartii ayaanu u soomaynaa wax walbana u baxsanaynaa biidnillaahi kariim asxaabay barnaamijkeennii waxaan rabaa inaan halkaa kusoo koobo oo aanan intaa ka badan sii dheeraynin tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waan idinkugu mahad celinayaa daawashadiinna waad ku mahadsantihiin sidaad u daawataan janalkan ta kale waxaan idinkaga tegayaa waxaan idin leeyahay nabaadiinada eebe ha ahaato korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu